12 bishan December subaxnimo axad ayay ahayd markii ugu yaraan 50 qof oo rayid ay ku dhinteen qarax ka dhashay gaari hoomey oo ay ka buuxeen waxyaabo qarxa oo la dhigay meel ay dadka ku badan yihiin oo ku dhow dekada magaalada Muqdisho. qaraxaasi kadib baaritaan ay sameysay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ayay ku soo qabatay Maxamed Ibraahim Xasan oo ahaa darawalkii waday gaariga qaraxa ee la dhigay halkaasi. sida ay sheegeen saraakiisha Niisa iyagoo isticmaalaya qalab baaritaan oo casri ah waxa uu suuro galay in ninkan ay ka soo qabtaan deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose oo uu ku dhulmaaleysanayay. bartilmaameedka ayaa ahaa in gaariga qaraxa lagu dhufto dekada kadibna ay gudaha u galaan 5 nin oo hubeysan oo ku socday gaari taxi kuwaasi oo dusha kala socday gaariga qaraxa. hase ahaatee wadaha ayaa qaatay go'aan ka duwan midkii uu siiyay horjoogihiisa ee ahaa weerarka dekada isagoo gaariga dhigay halka ay dadka shacabka ku dhinteen oo ah wada dhinaca ku heesa dekada. sida uu sheegayo Maxamed Ibraahim Xasan oo ka dambeeyay qaraxa. lix qofadan ahaanay oo American oo weyn oo dhahan aadan cali oo ku magac dheernow Muqdisho waxaan soo gaarnay waxaan soo marnay dadkan hoos oo daafada soo qaadnay oo biriga soo qaadnay saasoo soo galnay siyan soo galnay wadada soo galnay habeenka hadda ay tahay aan soo galnay subax aan soo baxnay asniinta ay tahay aan soo gaariga soo dhagnay Muqdisho oo dekamada oo xamar soo galinay laba gaari aan kala saarnay mid taxi ah mid iyo waxaan kala saarnay aasad ana wadi taxi u ka saarnay. maxaa lagu yiri marka adiga maadaama caasiga awdi meeyeen jooga dhaxdhigay dhaheen meeyeen meesha oo degad ah oo gaarka lama gogiisa dhan dhigay meesha ku baakan baa gaari habeen hal saac bar ay tahay markiis bad mas badal uu ka bedel maan aan ku sheekay oo jarmid laakiin ma ogma kulan laakiin ma kharax subaxda maqlay meesha ku baakan gaariga subaxda habeenkii illa ma dhaxdhiga go'aankii aan dhaxdhiga go'aankii ma ay suuq dhaxdhiga ahayd go'aankii ahay go'aanka waxaan ka la meesha oo laamig oo shirkad oo degad inaan dhigo meeshaan ku baakan dhamaan ku baakan habeenkii oo asniinta ay tahay ina meeshaan dhigo subaxda leena u danto ay fulistaan go'aankii aan asaasan aan niidii aan kala aniga. gaariga qaraxa ayaa laga soo abaabulay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose iyada oo Maxamed nolosha in ka badan 50 qof uu dhaafsaday 300 oo shilinka Soomaaliga ah sida isagaba uu qiranayo. kan la iku ah maan soo halkan gaari iku ah gaari kan soo wada maanta ma jirto halkan gaari iku ah asaga iku ah aan soo wada maanta Muqdisho soo galiyo degad aan dhigay oo degad Muqdisho aan dhigay iku ah gaari kan soo wada wax ka fulisay saddex boqol Soomaali sidii aan ku wada bas waan dareemay waan la socday laakiin dibku maanta oo qarax oo maanta baarkan gaari iku ah maqrax maanta baaran aan soo wada kala ma jirin halkan gaari iku ah markii gaari aan ku arkan waa shaqada aan iska daayay baan Muqdisho aan soo doon magaalada Muqdisho diin ahaan waxaan aaminsan in ku diid diinta bay fulnaa oo ku cunaa waaday siya oo iska baabiya shaqada iska dhaafna shaqada oo ciidanka muslimada aan kala aan la shaqaysto. taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Maxamed Xasan Faranfar ayaa ka hadlay sida ugu suura gashay in ay gacanta ku soo dhigaan ninkii ka dambeeyay qaraxii dekada. howlgalkaani wuxuu ahaa la 12 December waxaan la beegsanay dekada Muqdisho ka bacdi ma ay suura galin dad rayada iyo meel xero biliis agteeda ay dhigeen gaariga dhigeen Maxamed Ibraahim dhigay ragii kale way ka tageen hal saac bar habeenimo la dhigay hal saac bar subaxnimo ugu qarax 57 qof ku nafweysay ka bacdi waa baaritaan baa la daba galay Maxamed Ibraahim waqti dheer iyo juhd badan oo lagu baxshay ka bacdi la marka tan laga daba tagay lagu soo qabtay gaarigaas markii soo hore wax ka soo baxay meesha la aado sheeg Janaale ayuu ka soo baxay laba baabuur ay ahaayeen labadii baabuurna waa isqarxiyay baabuur waa nimanka rabay markii qarax u dhaco in ay wax geystaan oo dadka laayaan ilaahay ma suuragelin subaxii dambe 56 qof ku dhimatay 8 qofna way ku dhaawacantay. Maxamed Ibraahim Xasan isagoo sabab u ahaa dhimashada in ka badan 50 qof iyo dhaawaca ku dhawaad 100 kale ayaa haddana waxa uu weli rajo ka leeyahay nolosha waxaana uu dalbanayaa cafis. oo shaqaan aan diyaadin waxba al-shabaab ila shaqada baabino ana aan noqdo xerada fuqo aan noqdo aan isna maanta walaalahayga oo nabadgelyo maanta ay ka dhex joogo in afyaan ka dalbana walaalahayga maanta oo ana nafsan aan galay ku ahay in ay u afyaan aan ku adsanaya in hoosho uu galo oo naclo qabtaa walaalahayga uu dubto qarax uu dubto aan noqdo aan noqdo ama aan asna maanta aan ku tagaa walaalahayga aan ku adsanaya. kooxda shabaab oo ka dambeeyay weerarkii ka dhacay nawaaxiga dekada magaalada Muqdisho ayaa sheegta mas'uuliyadda weerarada aan kala sooc lahayn ee lagu xasuuqa dadka rayidka ah.